Assalaamu calaykum mudanayaal iyo murwoyin soo dhowaada dhammaantiin meel walba oo aad daafaha dunida ka joogtaan oo ku soo dhowaada machadka Darwiish Academy. Waxaan weli ku jirnaa qulqulkii taxana ahaa ee casharada candlesticks-ka. Candlesticks-ku waa wax muhiim ah midka uu ka dambeeyana uu kasii muhiimsan yahay. Candlesticks-ka oo aad fahantid waxaa fahantay sirta suuqa kan iyo qaab dhismeedkiisa, sababtoo ah chartiskan badan ay arkaysaan patternskan badan waxaanoo dhan waxay kasoo askumeen waa candlesticks-ka oo fahantidna waa adigoo fahmaysa u samaysmayaan waxaanoo dhan. Sababta aan candlesticks-ka ugu hormariyay barashadiisa sababtoo ah waxaad arki doontaan wax la dhaho continuation patterns, reversal patterns, istaraatiijiyada waxaa ku arki doontaan impulsive, dhaqaaq, candle, bullish, bearish, waxaas oo dhan waxa ay ka yimaadeen waxa weeye waa candleska. Sababtoo ah candleskana waxaa jira qayb reversal sameeya iyo qayb continuation sameeya. Markaad fiiriso marka waxaad arkaysaa suuqu marka uu sameynayo reversal candles baa jira ku tusinaya kuu digayso adoo patternskii calaamadihii haysta iyo marka calaamadaasi samaysmatana waa candles isku tegay. Candleska isku tegay marka u dambeeyana waxa confirmationka ku siinaya candle buu noqon doonaa. Ogow taas. Waxa jebinaya ama haduu ahaa correction waxaas ama uu ahaa ascending ama descending channel u ahaa ama flag u ahaa waxa ku siinaya waa candles. Candleska ugu muhiimsan kana qayb ka ah labadan candle oo ah bearish iyo bullish. Bearishku waa maruu suuqu yahay kor eray bixinta ku soo barateen waxa weeye qaybta asaasiyaadka. Bullishkuna waa maxay? Waa maruu yahay bullishku waa maruu yahay kor, bearishkuna waa maruu yahay suuqu hoos u socdo. Ogow taa. Okay, maxay sameeyaan marka candleskani xageesa ka dhacaan? Candleskani saddex meelood bay ka dhacaan. Candlekani waxa uu ka dhacaa bullishka ah hoos buu ka dhacaa waxana uu sameeyaa reversal buu hoos ka sameeyaa waana candle xoogan oo marka uu sameysmo kuu sheegay suuqu in awoodii lagala wareegay selleriski iyo awoodii la wareegaya nimankii buyerska ahaa. Sababta candlekani waa candle quwadaysan, suuquna waxa uu sameeyaa meel hoose markuu ka wareegayo waxa uu sameeyaa reversal correction channel waxa la dhaho. Inta uu suuqu kala wareegin nasashu galaa oo reversal buu galaa oo xamaasadii suuqa baa yaraata. Mar walba oo xamaasadii suuqu yaraatana maxaa dhacaya? Waxa dhacaya wax la dhaho momentum oo ah xamaasad kale in ay bilaamato. Ereyga kan Soomaali waxa ku noqonaysa xamaasad. Xamaasadaasi marka ay dhacdo ayna bilaamato waxa dhacaya waxa weeye suuqi inuu jihadii kala bedelayo. Candle-kana way candle-ka xamaasada sameynaya hoos buu ka sameynaya. Kadib suuqu markuu xamaasada sameeyo kadib wuxuu gelayaa wax kale oo la dhaho correction buu gelayaa. Okay, oo ah nasasho kale oo jahwareer ah buu gelayaa oo low momentum. Kadib maxaa bilaamaya? Waxana kaas candle-lada nooca sameynaya doji baa la dhahaa waa ka soo hadalnay. Suuqu markuu saan sameeyo waxa ku xiga oo dhacayana waxa uu noqonayaa bullish engulfing kala buu dhacaya. Waxana uu ka sameysmaa candle-kani halka hoose suuqa lagu kala wareejinayo bartamahana waa ku arkaysaa oo waa candle-ka badi sameeyo continuation-ka. Sababtoo ah marka aad gacanta la gasho meel ciriiriya maxaad u baahan tahay? Waxa u baahan tahay si xoogan inaad gacantaadii oo dhan quwadaadii oo dhan uga soo saarto. Waxana keenaya wax kale maaha. Waxa keenaya waxa u baahan tahay quwad ba u baahan tahay. Suuquna marka uu galo meel yar oo ciriiriya saas oo kale correction marka uu galo jahwareerkaas wuxuu u baahan yahay wax si xooga uga saara waxana ka saaraya candle-ka kan lagu magacaabo bullish engulfing candle oo quwad leh. Sidaas si la mid ah buu kana sameeyaa oo bearish engulfing candle-ku waxa uu ka dhacaa xagga sare ee suuqa waxa uu isna sameeyaa reversal buu sameeyaa oo suuq ku jiray markaad wax maqlaysaa reversal correction channel. Okay, suuq wuxuu ku jiray jahwareer buu kor ka sameeyay meesha tan oo trend line ahayd. Waxa dhacaya marka jahwareerkaas markuu galay candle-ka kan way candle-ka sida xamaasada leh u saaraya waxaana la dhahaa bearish engulfing candle waxaana uu leeyahay momentum si xamaasadaysan. Oo waa maxay? Suuqii oo halkaas nimankii ku jireen selleriski buyerski baa lagala wareegay awood wax la wareegay nimankii selleriska ahaa. Kadib maxaa dhacaya? Suuqi nasasho kale uu gelaya. Waxa sii soconaya oo sii wadayana meeshaas ciriiriga ama jahwareerka ka saaraya xamaasada yar waxa weeye
bearish engulfing candle waa candle quwad leh marka ay u yartahayna waxa uu dhaqaaqaa 60 ilaa iyo 50 marka ugu badan waxa dhaqaa 140 150 100 buu dhaqaaqaa waana idin tusayaa iyagoo tusaalayaal cadcada marka saddexda meelood ka dhacaan waa faantay candle-kani wuxuu ka dhacaa kor candle-kani wuxuu ka dhacaa hoos buu ka dhacaa bullish engulfing candle-ku xagga hoose ee suuqa sagxadda ah oo ah wuxuu ka dhacaa support meel hoose oo suuqa laga celinayay trend line-kaaga laga celinayay market structure-kaaga marka laga hadlayo buu ka dhacaa kadibna waxa uu sameeyaa quwad xoogan oo buy uu ku aadayo kadibna waxa dhacaya in suuqu low momentum kale waxa ka sii saarayna wuxuu noqonayaa continuation ka sii sameynaya bullish engulfing candle kana sidoo kale wuxuu ka dhacaa xagga sare wuxuuna sii soconayaa meesha hoose ilaa uu ka gaarayo meesha hooseysa oo laga wareejinayo aan tagno marka tusaalayaal cadcad oo suuqa ah anagoo tagaynaa hadda marka aan ka bilowno waxa la dhaho bearish engulfing candle halkan haddaad fiirisid suuq waxa uu ka galay correction meesha tan markaad fiirisid suuq waxa uu ka galay trend line bahad meesha tan suuq waxa uu ka galay correction buu ka galay walaalayaal meesha tan suuq waxa uu ka galay correction buu ka galay u jeedaan Soomaa correction kaas oo u jeedaan hadda muxuu sameeyay kadibna waxa dhacay bearish engulfing candle waxa la dhaho baa dhacay hadda 1 hour tagno si fasaxa u sii arkaysaa correction ka halka ka dhacay si fasaxa baad u arkaysaa correction ka aan sheegayo oo halka ka dhacay aan si fasaxa idin tuso correction ka dhacay waa kan وجد صاحبي correction kani dhacay maxaa sababay inuu halka ka dhaco waa reversal waa meel suuqa hore looga soo celcelinayo wajada sama waa trend line suuqa hore looga soo celinayo way ilaa ay halkaas ilaa ay halka kalena laga celcelinayo hada dhanka kale sii fiirisid okay balse anaga hadda tusaalaheeni baa rabnaa inaan fahanno halka maxaa ka dhacay waxa ka dhacay jahwareer baa ka dhacay wax la dhaho waxa ka dhacay jahwareer baa saaxiibyal ka dhacay barta suuqa waa lagu celcelinaya meeshaasi jahwareerkaasna nasasho correction baad ku maqlaysaa insha Allah Soomaalina waxay noqonaysaa nasasho kadib maxaa dhacay si uu meesha ciriiriga suuqa ugu wareegayo oo awoodii buyerski iyo sellerski isla eg yihiin waa u jeedaa Sooma buyerski sellerski isla eg yihiin waxa ka saaraya waa candle la dhaho bearish engulfing candle wax la dhaho oo maxay kan waxa la dhahaa bearish engulfing candle bearish engulfing candle kani marka uu dhaco maxaa weeye suuqii dhan buu dhaqaajay imisuu dhaqaaqay confirmation ka ahayso correction ka aragtay waxa ku xiga aad ogaatay ilaa inta 150 buu dhaqaaqay halka candle ba inta dhaqaaqay wajada soo okay aan idin tuso marka way buu ilaa inta u dhaqaaqay muxuu halakan cabiro ilaa halakan ilaa intaas cabiro oo ah meesha tan cabiro ilaa intaas oo ah meesha suuqu gaaramay soo qaadatan halka dhigo mu jeedaan meeshaas meesha u sarreeyay suuqu gaarayso cabirka soo qaado kadibna halakan dhig sababtaas weeye sababtu halka u yimaado mu jeedaan bartaas leegaysi exactly waxaad arkaysaa inuu gaar hadii kale halakan oo ah impulsive ka cabiro meesha tan soo qaad u shatan meesha tan oo impulsive ka cabiro waa sababtu ilaa halkaas ilaa inta u soo dhaqaaqay fiiri waa maxay waa qaabka uu suuqu u sameysmayo waa market structure-ka qaybta sare ku arki doonta marka anagu laakiin waxa hadda ka hadlaynay waa bearish engulfing candle kor ka dhacay isagoo sii soconayo dhex bartamaha ka dhacayna aan raadino okay waa kan isagoo dhex bartamaha ka dhacayna saaxiibayaal isagoo dhex bartamaha ka dhacayna waa kan mujeedaan isagoo ka dhacay bartamaha suuqa isagoo ka dhacayna waa kan mujeedaan waxa la dhahaa kana suuqa halkan wuxuu kaga jira correction okay kadib muxuu sameeyay uu soo dhacay oo waa maxaa la dhahaa kana waxa la dhahaa bearish engulfing candle baa la dhahaa oo dhex bartamihii ka dhacay maxaa idira dhex bartamuhu ka dhacay suuqu u sii socdo jihada u sii wato bearish engulfing istaraatiijiyadeedana iyadoo faahfaahsan ku arki doontaan bearish engulfing baa la dhahaa okay haddii aan marka kii suuqu mar walba waxaan dhihi doonaa aad arki doontaa mar walbana dhahaa inta muddada dadka wax barayay suuqu waxa uu sameeyaa wuxuu hore u sameeyay oo maxaan ka wadaa soo jar suuqu wuxuu hore u sameeyay halkaas ilaa halakan okay soo qaado halakan dhig maxaad arkaysaa in ay suuqu u sameeyay wuxuu hore u sameeyay oo midba waxa kale ay la eg tahay iyo inta kale kaliya marka waxa soo jaraynaa impulsive ka suuqu soo dhaqaaqay halkaas ilaa intaas soo jar ma u jeedaan waa exactly u jeedaa Sooma okay kana jar
kana aan jarno okay ilaa inta uu dhaqaaqay suuqa oo impulsive-ka ah halkaa dhigo marka maxaa arkaysaa tatan soo jar isna okay halkaa dhig waxaa arkaysaa inay yihiin isku mid aysan waxba ku kala duwanayn sooma wuxuu suuqa hore u sameeyey oo marka kan la isbarbar dhigo kan kale uu leeyahay kan marka la barbar dhigana uu kan kale leeyahay waxaa la dhahaa market structure qaybta dambe casharkan aan ku sharixi doono faahfaahsanna waad arki doontaan okay markaa fiirisi marka halakan haddaad soo jirtid oo tan soo qaadid oo halakan dhigtid waxaa arkaysaa suuq wuxuu hore u sameeyey inuu mar labaad sameeyey sida bartii oo kale u gaaray haddaad tan kale soo qaadid oo soo jirtidna waxaa arkaysaa suuqu wuxuu hore u sameeyey inuu mar kale sameeyey saaxiibayaal jida suuqu wuxuu hore u sameeyey inuu mar kale sameeyey isla eg yihiin mujida waa maxay waa market structure waa indicator iyo waxaas oo dhan uma baahanaysa waxa u baahan tahay waxa weeye indhahaaga iyo chartska suuqa kan iyo calaamadaha uu sameynaya inaad fahantid okay waadna arki doontaan patternskan oo kaga hadli doono waxyaabahan oo kale okay halka markaas la fahanay oo qaybtu ka dhaca hoose iyo dhexe iyo sare waxaan tegaynaa markaa candleska bullish kan tegaynaa bullish engulfing candle baan raadinaynaa wow waxaan waa patterns waan arki doontaa oo ku baran doontaa qaybta dhexe balse hadda anagu waxaan doonaynaa waxyaabaha aan u soconno oo ah sirta inaan fahanno okay halka suuqu waa meel reversal ka sameeyey waxana weeye wax muhiima baa ka dhacay halkan markaad fiirisid okay meesha tan wax muhiima baa ka dhacay oo waxa ka dhacay double bottom baa ka dhacay haddaa ujeedaan oo suuqa waa laga celiyey oo reversal buu ka sameeyey patternskanna waa baran doontaan okay balse hadda casharkeena focus ka saarayna suuqa halka waa ujeedaa meesha lagu celinay zigzag buu kasoo sameeyey meeshan lagu celcelinay halkan uu yimaado okay maxaa dhacay hoos buu u soo socdo yimaaday kadib muxuu sameeyey reversal maxaa correctionkan suuqa uu soo galay oo saana corrective-ka uu soo galay maxaa ka saaray waxa ka saaray wax la dhaho bullish engulfing candle intuu socdina ujeedaan 150 waa nigina hore yiraahday 140 ilaa iyo marka uu yartaana cotton buu sameeyaa ilaa 60 aan tagna marka aan dhahno waa maxay kani waa bullish waa maxay waa bullish engulfing candle way okay waa maxay waa bullish engulfing baa isna halkaa ka dhacay bullish engulfing baa dhacay oo samaysmay ujeedaan bullish engulfing baa samaysmay markuu bullish engulfing kani samaysmay confirmation baa haysataa saaxiibayaal uu suuqii aad aragtay oo meel hoose ka dhacay suuqa laga kala wareejiyay sababtana waa ogtahay oo patternskan double bottomka kani waa meel suuqu horay usoo taabtay oo misna mar labaad u yimaaday kadibna uu ka kala wareegay waa cajiib suuqu wuxuu hore u sameeyey mar labaad sameeya marka idin leeyahay waxaana waxa ku arki doontaan qaybta sare anoo kaga hadli doono ujeedaan meesha uu kanisaan ka sameeyey kana iyadoo fororosaan u sameeyey waa cajiib waxaan kaga hadli doonaa qaybta sare ee suuqa aan tagno oo raadino marka qaybtii dhexe oo suuqa uu ka sameeyey misna bullish engulfing candle-ka oo isna qaybtii dhexa aan tagno soconno aan raadino aan halakan tagno marka halka markaad fiirisaan isagana suuq wuxuu ka sameeyey wax la dhaho bullish engulfing candle aan tagno halka marka saaxiibayaal halka markaad fiirisid suuq wuxuu soo sameeyey dhaqaaq markaad fiirisid waxa uu soo sameeyey dhaqaaq uu soo sameeyey mujeedaan dhaqaaq uu soo sameeyey maxaa halkan dhacay waxa uu sameeyey correction buu galay dhaqaaq buu soo sameeyey halkan ujeedaan isaga laftiisa reversal buu ahaa kadib maxaa socday bullish engulfing candle baa halkaa ka dhacay oo hoose waa maxay bullish engulfing baa ka dhacay meesha hoose kala wareegi maxaana reversal buu sameeyaa sooma kadibna waxaana dhex bartamuhu ka dhacaa oo maxaa dhacay dhaqaaqu soo socday nasashu galay jawreer kadibna maxaa jabiyey correctionkan uu suuqu galay waxa jabiyey waxa la dhaho bullish engulfing candle bullish engulfing baa jabiyey saaxiibayaal waa candle muhiima oo cajiiba dhex bartamihiina uu ka dhacay haddaa sii baartid meelo badan uu ka dhacay baa siilisa halakan oo kale hadda uu sii socday correction buu kale waxa saaray oo ka baxay wax kale ma waxa weeye waa bullish engulfing candle bearish engulfing candle ki isna halaka ka dhacay baa misna arkaysaa meel kala duwan reversal kiya waa kan exactly waa
waa ka cotton marakan cotton bee buu dhaqaaqay 40 bee meelahaas waa isaga correction kan uu ka soo saaray suuqii okay sababta uga soo dhaqaaqayna wax kale maaha cabirkaagi soo cabira halakan cabirkaaga halkaas soo cabiro okay ilaa intii oo kale soo dhaqaaqay u jeedaan bartii buu yimaaday waa bullish waa bearish engulfing candle bullish engulfing candle ka halka hadaad fiirisaan saaxiibayaal waxa uu sameeyay fiiriya meesha tan maxay ahayd meel suuqa lagu celcelinayay bay ahayd meel suuqa lagu celcelinayay bay ahayd maxaa ka samaysmay large flag baa ka samaysmay u jeedaan halkan waa maxay marka total u jeedaan kadibna correction buu galay halka maxaa jabiyay waxa jabiyay wax la dhaho bullish engulfing candle baa jabiyay saaxiibayaal hada u jeedaan soo ma jeedaan bullish engulfing candle waa maxay waa bullish engulfing candle kaas awood leh bullish waa maxay waa bullish engulfing fiiri inta uu dhaqaaqay candle-kaasi saaxiibayaal halka inta uu ka dhaqaaqay fiiri 100 bib ku dhawaad buu dhaqaaqay 96 bib waa muhiim inaad fahantid candle-iska iyo qaabka u samaysmaan iyo sida aad faa'iido uga samayn kartid sababtoo ah markaad fahantid sirta candle-iska ku duugan waxaad fahmaysaa sirta suuqa markaad sirta suuqa fahantidna waxaad fahmaysaa sirta aad lacag ku samayn lahayd oo suuqa kan aad horumar la taaban karo uga gaari mudanayaal iyo murwooyin labadan candle waxaa la dhahaa bullish engulfing candle iyo bearish engulfing candle waana laba candle oo muhiim ah darwish strategy-na oo ku arki doontaan candle-ada tan aan aad u adeegsan doono guulaysta mar iyo marar badan ba waxaan idin rajaynayaa inaad sirta suuqa kan ee forex ka faa'iidaysataan axmed darwishna usan idinka hagranayn idinkuna inaan waqtigiina ka hagran ood barataan cilmiga kan guul baan idin rajaynayaa horumar maasantiin saaxiibay